waxaa la yidhi adduunyadu waa maadeys dadkuna waa ay matalayaan hase yeeshee xalaytii ka dhacday istaadiyaha Nou Camp ee magaalada barcelona waxa ay ahayd dunidu waa maadeys messina waa matalaya waxay ahayd habeenkii loo firaaqeeyey wacdarada messi oo inta dhulka la galay milan baalasha ka rifay oo ku tuntay cawska Nou Campna cunsiiyey sida uu u galay milanna waa wax aan lagu soo koobi karaynin laba kelmadood maxaa yeelay tallaabada uu qaadaba waxa ay ahayd mucjiso waxaana la dhihi karaa messi waa mucjisada kubadda cagta waxaana mooddaa in messi iyo balooniga ay iska warqabaan oo mar walba oo balooniga u sito waa ay adkayd in laga dhigo baloonigaaba mooddaa in lugtiisa lagu kooleeyey oo waxa uu isaga dhex baxayay 4 ilaa 5 ciyaartooy oo ka tirsan milan goolkiisa horena waxa uu dhaliyey daqiiqadii 5aad isagoo inta baloonigii loo soo dhiibay lugta midig ku qaboojiyey oo ay markaasina ku shamuumsan yihiin ilaa iyo 4-5 ciyaartooy oo milan ka tirsan waxa balooniga uu ku darbeeyey lugta bidixda isagoo shabaqana ka geliyey halkii uu bartilmaamaysaday isaga oo keliya kuma barbaran milan ee waxa kaloo sida loo dheela baray milan Iniesta oo ciyaarta iftiiminayay waxyaabaha la yaab kale ee uu sameeyey Iniestana waxa ay ahayd in isagoo ordaayaba uu xariiftamayay sidii loogu dheeldheelayay milan oo isku wada kuustay difaaceeda ayaa mar balooni uu meel fog ka soo tuuray Montolivo oo si qaldan Mascherano madaxa ugu dhuftay ayaa waxaa helay Niang oo inta ka tallaabsaday Mascherano fursad u helay inuu gool dhaliyo oo goolkaasina uu dhaliyo milan hase yeeshee darbadiisa waxa ay ku dhacday qoriga talyaaniguna waxa ay dhahaan gool mankato gool subito gool la gafay gool laga dhali sidaas ayaana ku dhacday milan maxaa yeelay 2 daqiiqo kadib markii ay gafeen waxaa mar kale ugu shubay messi oo baas qayrul caadi ah oo ka helay Iniesta ayaa waxaa sidii hore oo kaleeta iyadoo lagu xunsan yahay waxa uu si caraysan u darbeeyey balooniga oo ka galayna shabaqa milan isla meeshii hore halkaas ayaana messi uu ku soo celiyey 2 gool ee lagu lahaa barcelona oo milan ay dhalisay isaragii hore waxaa lagu kala nastay 2-0 oo ciyaartu ay ka socotay hal dhinac oo keliya barcelona oo weerara iyo milan oo difaac maahay shaqo kale aan qabanin qaybta labaad markii la isu soo laabtayna milan waxa ay istiri xoogaa ismuuji oo tabar iska raadi hase yeeshee waxaa hortaagneed koox shaqo ka dhigatay weerar oo balooniba kama khasaaraynin daqiiqadii 10aadna waxa milan goolka saddexaad ka dhaliyay David Villa Iniesta Xavi del interior de Villa contra la Villa chuta Villa aakhirkiina iyadoo ciyaartu ay gabagaba tahay oo milan ay leedahay gool oo nasiiba ka dhali barcelona ayaa goolkii afaraad waxa uu qubeeyay Jordi Alba waxay yiraahdeen waxa soo laabatay duulkii meel kale ka yimid kii lagu dhigay milan waxa digniin ay u tahay kooxaha isugu soo haray wareegga xiga oo koox waliba waxa ay ka baqaysaa inay ku soo aado barcelona